بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن وتضبية طبنك بشا أبريل سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن سغال يلباتن كبشا شوال سنة كون أفر بغلا فرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي ورارك ما أنت قضبدا آن إذن كوهينانا وحا كمدا وعيدمدا إلاندا كعانك إسلاميغا إيران أو شاعيي إن أي كجران هيغن بوحة أي نفرتكو هيان ريشاد قوريغا إسلام مركاسنا أي سوين ولا السعودان دغدقاقا وحا إيغو ييران عدوغا هذا الكن أي كسو أديا يدو حيسادو ولي تاغنتهاي إنكستو ددالة حوغان أو دنكا دبلوماسيادا أي السعودان ترام أو رجك موجيي إن هشيس أي لغاران إيران باكستان oo dhankeeda sheegtay in kulanka la filayo in uu dhexmaro wafuudda Mareykanka iyo Iran lagu gaari karo heshiis dhameystiran madaxweynaha Kuuba oo si cad u sheegay in ay si weyn uga hor imaan doonaan oo iska difaaci doonaan duulaan dalkooda Mareykanku uu ku soo qaado Ukraine oo xaqiijisay in markii ugu horeysay ay adeegsatay robotka dagaalka kuwaasi oo ay sheegtay inay ku qabsatay xere ciidan oo ruushku u leeyahay isla markaasna askar ay gacanta ku dhigeen dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وأنكم هسنتهين داوشة برنامجك وأنت وحين كوبلا بين حيصد مريكان كأي كوبا كدح الوصم مدحونها مريكان كأي وحوكو أندعونيا إن هدي أي كسو جيستان دقال كإيران مركز إن يوجي هايسد دونان لنك كوبا هذا وأنتن يسوكو كتواريا مدحونها ودك كوبا أي وحا أوشاقي إن أي سيوين يسقيد دفاعي دونان مريكان كا madaxweyne Miguel Diaz-Canel ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay suurtagalnimada weerar uga yimaada Mareykanka kadib bila cadaadis dhanka siyaasadda oo madaxweyne Trump uu saaray dalkaasi Diaz-Canel oo ka hadlayay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Havana laguna xusayay sanad guuradii 65aad ee isku daygii military ee fashilmay oo Mareykanku taageerayay si loogu rido dowladii Fidel Castro ee Cuba ayaa farta ku fiiqay in Cuba aysan doonayn dagaal balse ay waajib ku tahay inay isu diyaariso si ay uga hortagto haddii uu noqdo mid lama huraan dagaal ayna guuleystaan madaxweynaha ayaa xaaladda hadda jirta ku tilmaamay mid aad u adag oo khatar isagoo sheegay in Cuba ay wajahday cadaadisyo isdaba joog ah oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn dhaqaale go'doomin shidaal iyo waxa uu ku tilmaamay dagaal dhaqaale wuxuu diiday eedeymaha Mareykanka ee sheegaya in Cuba ay tahay dal fashilmay isagoo ku adkaystay in ay tahay dal la go'doomiyay Cuba laakiin dadkiisu ay adkaysanayaan hadalladan ayaa ibaaraya iyadoo xiisaddu ay sii kordhayso kadib markii Trump uu sheegay in Cuba ay noqon karto bartilmaameedka xiga kadib colaadaha la xiriira Iran iyo tallaabooyinka ka dhanka ahaa Venezuela warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in wadahadallo hoose ay dhex mareen Washington iyo Havana si loo dejiyo xiisadda balse horumar yar laga sameeyay dowladda Mareykanka ayaa dalbatay in Cuba ay joojiso caburinta dhanka siyaasadda ay si dayso maxaabiista isla markaasna dib ay u furto dhaqaalaha dhinaca kale cunaqabateynta shidaalka ayaa sii xumaysay xaaladda nololeed ee dalka Cuba iyadoo ay sii kordhayaan koronto la'aanta iyo shidaal yarida ka jirta waddankaasi taariikhi ahaan Cuba iyo Mareykanka waxay leeyihiin xiriir muran badan huwan gaar ahaan wixii ka dambeeyay kacaankii Fidel Castro ee ka curtay Cuba 1959 iyo fashilkii duulaanka Mareykanka oo baritaarayay ee 1961 la damcay in lagu rido hogaamiyihii Cuba Fidel Castro intaas aynu ka gudubno warbixintaasi bal markan aynu eegno xagga dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyadoo dagaalku imika uu socdo
ayaa saacadihii ugu dambeeyay dhanka Ukraine waxaa ka soo yeeray war weyn oo aad loo hadalhayo cutub ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa xaqiijiyay toddobaadkan in ay fuliyaan in ka badan 100 weerar oo ka dhana bartilmaameedyada ciidamada Ruushka ay ku sugan yihiin isagoo sheeganaya in robotyada dhulka ka shaqeeya ay horumar cusub ka sameynayaan dagaalka u dhaxeeya iyaga iyo Ruushka ila ka tirsan shirkadda NC13 ee hoos tagta guutada saddexaad ee weerarka ciidanka Ukraine ayaa waxay sheegeen in howlgaladan ay ku jiraan ciribtirka ciidamada sida hadalka loo yiri cadowga iyo burburinta hooyiga iyo xarumaha taliska waxay intaasi ku dareen in robotyadu ay noqdeen qalab si joogto ah loogu adeegsado halkii ay ka ahaan lahaayeen dhacdooyin gooni-gooniya dagaalka robotyada qaar ayaa ah kuwa ismiidaamiya oo ay ku rakaban yihiin waxyaabaha qarxa halka kuwa kale ay ku qalabaysan yihiin hub toos ah oo rasaas ridaya sida uu sheegay sarkaalka hogaaminaya NC13 adeega tiknoolajiyadan ayaa bedelay weeraradii dhanka lugta ee ciidamadu ay fulin jireen kuwaasi oo badanaa sababi jiray khasaare naf iyo dhaawac badan isugu jira madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku faanay horumarkan isagoo sheegay in markii ugu horeysay taariikhda robotyo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay si wada jira u qabsadeen saldhig Ruushka uu leeyahay ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashadiisa sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay guutada saddexaad howlgalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa 4 robot oo midkiiba uu sido 30 kiilo oo walxaha qarxa loo diray saldhig difaac oo Ruushka u lahaa robotkii ugu horeeyay ayaa qarxiyay albaabka halka kii xigay uu gaaray gudaha taas oo keentay in askartii Ruushka ay isdhiibaan muuqaal laga duubay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa muujinaya askar Ruush ah oo sita boorar ay ku qoran yihiin inay doonayaan inay isdhiibaan kadib markii laba isku day hore ay fashilmeen arrintu markaasi maraysa laakiin warkan dhanka Ukraine ayaa laga soo xiganaya ilaa hadda ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijinaysa Ruushkana warka ma soo saarin arrintan laakiin waxa la og yahay dagaalkan Ukraine iyo Ruushka in inta badan uu ku saleysan yahay tiknoolajiyada casriga oo la iskala tagay dagaalkii dababaadka maraakiibta iyo diyaaradaha la isticmaali jiray laakiin robotyada iyo diyaaradaha droniska ayaa kaalin weyn ka qaadanaya waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda bariga dhexe gaar ahaan Iran oo hadallo kulkulay ka soo yeerayaan Trumpna rajo ayuu muujinaya xubintii falaqaynta ayaan sidoo kale barnaamijkeena kugu haynaa iyo qodobo kale intaan u gudbin ayna ku hakanno qadar soo dhawaada markale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo maalinimadan jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal warar faahfaahin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag xaaladaha bariga dhexe aynu ku sii soconnay waxaynu eegaynaa haatan wararka ugu dambeeya ee la xiriira wadaxaajoodada socda inkastoo weli xiisadu ay taagan tahay dhanka Washington aynu ku hormarno madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu baaqay ururka Xisbullah in uu si wanaagsan oo nabdoon ugu dhaqmo inta lagu guda jiro xabajoojinta ka dhaqan gashay Lebanon isagoo sheegay tani ay noqon doonto fursad muhiim ah oo nabadeed ayaa qoraal ku daabacay baraha bulshada ku sheegay in la joogo waqtigii la joojin lahaa dhiigga isla markaas la gaari lahaa nabad waarta dhinaca kale Iran ayaa waxay sheeganaysaa in iyadu ay ku qasabtay Mareykanka iyo Israa'iil in la joojiyo dagaalka Lebanon afayeenka baarlamaanka waddankaasi Iran ayaa waxa uu sheegay in shuruudihii lagu xiray wadaxaajoodada in dib isugu soo laabtaan Mareykanka iyo Iran ay ahayd in dagaalka Lebanon la joojiyo waxaanu ku sheegay inay tahay inay isdhiibtay Israa'iil kadib markii lagu qasbay rasaas joojinta isla wararka Iran taliyaha ciidanka Iran Amir Hatemi ayaa sheegay in ciidamadiisu ay si buuxda ugu diyaar garoobeen inay ka jawaabaan tilaabo kasta oo cadowgu ay markaasi isku dayaan in ay qaadaan isagoo tilmaamay inay farta ku hayaan riishada qoriga sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ee loo yaqaan IRGC ayaa ballan qaaday in ay si adag uga jawaabi doonaan fal kasta oo gardarra iyagoo ka digay in weerar kasta uu keeni doono darbaaxa burburina
militariga Mareykanka ayaa dhankiisa shaaciyay in markabka xambaara diyuuradaha dagaalka ee USS Abraham Lincoln uu ka soo gudbay badda Carabta iyadoo Washington ay sii wado waxay ku tilmaamtay go'doominta lagu hayo dekadaha iyo xeebaha Iran dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale waxa uu sheegay in si dhaqso ah uu ku dhamaan doono dagaalka Iran isagoo tilmaamay in waxqabadka wasiyada ku yiri militariga Mareykanka uu kaamil yahay isla markaasna guusha ay dhowdahay isla arrimahani ila ka tirsan Pakistan ayaa waxay sheegeen in horumar laga sameeyay dadaalada dhanka diblomaasiyadda iyadoo marka la sheegayo in la filayo in la gaaro xabajoojin iyo is-afgarad buuxa oo dhameystiran muddo 60 maalmood gudahooda wararka sidoo kale waxay sheegeen inay socdaan xiriiro hoose oo u dhaxeeya arrimahani dhanka diblomaasiyadda wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga, Masar, Pakistan iyo Sacuudiga ayaa la filayaa in ay kulmaan iyagoo ku kulmi doona magaalada Antalya ee dalkaasi Turkiga ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xagga Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Alexandria Ocasio-Cortez oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee Mareykanka ayaa ku eedeysay Trump inuu ku hanjabay adeegsiga militariga si loo fuliyo xasuuq ka dhana shicibka Iran iyadoo ku tilmaamtay dagaalkaasi mid sharci darro ah oo jahwareer geliyay dunida iyo dhaqaalahaba waxagan haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan qobarada arrimaha militariga arrimaha istiraatiijiyadda iyo dagaalka sidoo kale waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa warbixinada kale ee warbaahintu ay daabacdo ama ay baahiso xubintan si gaar ah waxaynu ugu eegaynaa macluumaad sirdoon oo soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in inkastoo Iran dhaawac weyn loo geystay dhaqaalaheeda oo laga dilay xubno badan oo kamid ah mas'uuliyiinta haddana laakiin isku xir balaaran uu jiro isla markaasna si weyn Iran ay uga soo kabatay dagaalka hagaag shabakada wararka ee Bloomberg laga leeyahay Mareykanka ayaa baahisay warbixin ku salaysan qiimeyn dhanka sirdoonka taas oo lagu sheegay in Iran ay la kulantay burbur weyn oo soo gaaray kaabayaasheeda dhaqaalaha isla markaasna la dilay taliyaasheedii sarsare laakiin qorsheynta hawlgallada ee la sameeyay ka hor colaadda ay wax ku ool u ahayd ka hortagga burburinta awoodeeda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo sidoo kale kordhinta saameynta jawaabteeda military Bloomberg ayaa intaasi ku dartay in qorshayaasha Iran ee lagu bedelay taliyaasheedii sarsare haddii ay dhintaan ay gacan ka geysatay yaraynta jahwareerka qaab dhismeedka taliskeeda markii la beegsaday maalmihii ugu horreeyay ee dagaalka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xakamaynta hubka nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa xaqiijisay in Iran ay haysato kayd ballaaran oo gantaalada masaafada dheer ah sida ay sheegeen saraakiil ka socda dalalka Yurub iyo kuwa Khaliijka kuwaasi oo sidoo kale xaqiijiyay in Iran ay haysato kumanaan diyuuradaha aan duuriyaha lahayn saraakiil reer galbeed ayaa sidoo kale u sheegay IAEA in Mareykanku uu u baahan doono inuu fuliyo 2 ilaa 3 toddobaad oo dheeraad ah oo weerar ah si uu si buuxda u weeqo awoodda Iran kuwa kale ayaa ku adkaysanaya inay qaadan karto waqti dheer isla markaasna laga yaabo inaysan gebi ahaanba burburin awoodda warshadeed iyo tan nuclear ee Iran qiimaynta sirdoonka reer galbeedka ayaa xaqiijisay in nidaamka Iran weli uu yahay mid xasiloon oo midaysan xitaa xilligii la dilay hogaamiyihii hore ee ugu sarreeyay Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo xogayihii golaha sare ee amniga qaranka Ali Larijani maadaama awoodda nidaamka ee go'aan qaadashada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan arrintaasi Nat Swanson oo hore uga tirsanaa waaxda wada xaajoodiyaasha Mareykanka ee arrimaha Iran isla markaasna ah cilmi baare ka tirsan golaha Atlantiga ayaa ku dooday in Iran ay dib u dhisatay awoodeedii ka hortagga inkastoo weeraradii military ee ay la kulantay ay ahaayeen kuwa culus Swanson wuxuu tilmaamay in Tehran ay sii waday ku tiirsanaanta 3 tiir oo ah ka hortag barnaamijkeeda gantaalada suurtagalnimada horumarinta hub nuclear iyo shabakadaheeda wakiilada gobolka kuwaasi oo ahaa tiirar si xooggan loo beegsaday kadib 2023 laakiin Iran waxay soo bandhigtay qayb afraad oo ah ka hortageeda oo ah gacan ku haynta marin biyoodka Hormuz isagoo ka duulaya waayo aragnimadiisa gudaha miiska go'aan qaadashada Mareykanka Swanson waxa uu ku sheegay maqaal uu ku qoray warsidaha Foreign Affairs in Iran ay la qabsatay dagaalka si ka wanaagsan in sidii la filayay istiraatiijiyadda Iran waa mid dhaqaale ahaan wax ku ool ah iyadoo ku tiirsan habab jaban
oo qasaare culus gaarsiinaya cadowgeeda oo isticmaalaya nidaamyad difaac oo qaaliya taasina waxay siisay baaliyada Iiraan fariin cad iyo faa'iido cad oo markaasi ku aadan inay ka soo kabatay qasaare kasta oo soo gaaray arrintu marka waxa leeyahay waa sababta keentay in Mareykanku dib ay iskugu laabtaan xitaa arrintan heshiiskana xabajoojinta ee hadda ka hirgalay Lubnaan waa shuruud ka timid Iiraan oo ahayd wadahadal ma iskugu imaanin hadaa xabadda la joojin Lubnaan xitaa wasiirada Israa'iiliinta waxay leeyihiin xabajoojinta raadiyaha u baan ka maqalnay Trump markuu ku dhawaaqay kadib 2 saac ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil muuqaal soo duway baraha bulshada soo dhigay wasiirada marka waxay leeyihiin baraha bulshada ayayna ku aragnaba dalagama tashan cod lama qaadan maxay tahay marka sababta waxa leeyahay hadafkii dagaalkan ay ku mideysanaayeen Netanyahu iyo Trump uu dhicisoobay Trump wuxuu qiimeeyay xaaladda in isbedeshay xitaa haddii ay noqoto Netanyahu meesha inuu ka baxo oo Israa'iil cusub ay soo baxdo Iiraan la heshiiyo gobolkan in xaaladda la dejiyo waa suurtagal go'aankaas inuu qaadan karo laakiin ku dhiiran kala su'aalo badan baa la iska weydiinaya arrintaas gudaha Mareykanka ma dhici karta inay kaga furmaan loolan siyaasadeed waa arrin suurtagal ah Kongareeska Mareykanka ugu dambeeyay awoodii in la xadido madaxweynaha hal cod oo kaliya ayaa mushkilaasi lagu buriyay ileen markii hore waxa soo gudbiyay xubnaha xisbiga dimuqraadiga waxa la yiri awoodda madaxweynaha la xadido si dagaal uusan u qaadin Kongareeska u yimaada Kongareeska oo ka dalbado laakiin hal cod oo kaliya ayuu ku badbaaday haddii codkaasi uu raaci lahaa dhinaca kale ee ogol in la xadido awoodda madaxweynaha halkaas waxa ku jabi lahayd saameyntii Trump ee dagaal uu ku qaadi lahaa laakiin hadda weli wuu haystaa aqlabiyadii Kongareeska iyo Senatka labadaba laakiin wuxuu fahamsan yahay Iiraaniyiinta inay yihiin dad lakada oo soo jeeda oo aan laga guuleysan karin siyaas darteed isagoo ka fakaraya mustaqbalkiisa siyaasadeed danaha Mareykanka xulafada Mareykanka doorashada dhici doonta dhamaadka sanadkan iyo dhaqaalaha ninka uu ganacsada sheerar badan ama saameyn badan buu ku leeyahay shirkado waaweyn shirkadahan afkay goosteen marka Netanyahu wuxuu sheegay dagaalkan 48 saac aan ku celiyay mar kale 48 saac oo qura in lagu guuleysan doono asagana tagay xitaa looma dirin cid kale asay aqalka cad tagay Trump marka wuxuu hordhigay qodobo kala duwan haddaan dilna Ali Khamenei haddaan dilna taliyaasha ciidamada haddayna dilno weerarkaas haddaynu qaadno intaasoo maalmood dadka ka cahaya waddanka dhan geligiisa waa gacanta lagu dhigayaa Trump marka arrintu wala yaabay say u fududahay laakiin Soomaalida maxay tiri dhubuq hore dhabanahays dambay leedahay wixii marka way luxmaadeen hadda Trump sidaas yaale qobarada Mareykanka ayaa sidaas marka waynu arki doonaa wixii ku soo kordhaan mahare inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta ana ku mahadsantihiin daawashada